ciyaar aad u xiiso badan galabta ay ku dhex martay garoonka Gumur Stadium ee degmada Gadag koox ka socotay gobolka Togdheer isla markaana ku ciyaarsay magaca shirkadda Somtel iyo xulka degmada Gadag ciyaartan oo ahayd mid aad u xiiso badan isla markaana ciyaartoydu soo bandhigeen weerar iyo weerar celin isla markaana ku soo gabagabowday gool iyo siiro halkaas ay guusha ku raacday xulka degmada Gadag waxa goolka u saxay Xamse Salebaan Boobe waxa uu horeyn furitaanka ciyaarta ka hadlay maamulaha wasaaradda ciyaaraha Maxamed Xirsi iyo tababaraha xulka degmada Gadag Saciid Aadan Saciid iyo tababaraha xulka ka socday gobolka Togdheer isla markaana ku ciyaaraya magaca shirkadda Somtel ayaa Cabdiraxmaan ugu horeyna waxa halka ka hadlay maamulaha wasaaradda ciyaaraha Maxamed Xirsi hadaladiisna waxa kamid ahaa sida tan waxa maanta halkan Martin noogu ah oo nala jooga team ka socda gobolka Togdheer waa soo dhaweynaa waxaan idinku soo dhaweynaynaa degmada Gadag inaan la ciyaartaan teamka dhigiina ee degmada Gadag welcome waa idin soo dhaweynaynaa mar koobaad iyo mar labaadba annagoo aad ugu faraxsan waxaan idinkula dardaarmayaa teamka loo yimi ee degmada Gadag inay si fiican oo maaragtay habsamiya oo niyad samiya oo wanaagsan inay saaxiibadooda kale ee dhigooda inay ula ciyaaraan ciyaar wanaagsan oo qurux badan na ay soo bandhigaan sidoo kale idinkana waxaan idin rajeynayaa in ciyaar wanaagsan oo qurux badan aa soo dhigtaan oo lagu diirsado lagu farxo Gumur Stadium waxa galabta Martin noogu ah koox ka socota gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa qalbi furmaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furmaan ku soo dhaweynaynaa waxaan leenahay guushu hadday raacdana annaga in raacday hadday idinka raacday waxaan kula leenahay mid si fiican baan idin soo dhaweynaynaa barashadu waxa la walaba oo ku bartay oo kuma daayo iyo ku bartay oo kuma noqdo teen waxay noqon doontaa ku bartay oo kuma daayo waan idin imaanaa waan noo imaanaysaa aad iyo aad u mahadsantiin aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta joogno degmada Gadag iyadoo ay si wacan noo soo dhaweeyeen sida tababaraha degmada iyo gudoomiyaha sportska degmada aad baan ugu mahadcelinaynaa marka koowaad aan Gadag imaado Gadag anigu ciyaartooyaan ka ciyaaray garoonkan anigoo tababaraha Gadag u aadan joogay garoonka anigoo koox Burco wataana maanta galabta waan imi aad baan u faraxsanahay inaan dib u soo noqdo ciyaartan oo ahayd mid aad u xiiso badan ayaa garoonka waxaa soo buux dhaafiyay taageerayaal aad u tiro badan isla markaana kala taageersan labada kooxood iyagoo isku darayay sacab iyo sawaxan waa Madar Sayreen muuqbaahiyaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Gadag